بسم الله الرحمن الرحيم. magacayga waxaa la yidhaha cabdisamed ibraahim lageeye waxaanan ahay madaxweynaha awdal state madaxweynenimadana waxa dhowaan ayaa la ii dhiibay waxaanan actually waxaanu kana wuxuu yahay shirkii jaraa'id ee iigu horreeyey shirkan jaraa'id ee iigu horreeyey hadda waxaan runtii ku qeexayaa waxyaabaha annagu aan rabno inaan samayno ee aan xisbigan oo aan muddo dheer daba soconnay weliba gaar ahaan anigu aan muddo dheer daba socday waxa aanu daba soconnay iyo ujeeddada aan lahayn iyo himilada aan rabnay ayaan rabaa inaan dadka u qeexo marka ugu horreysa anigu waxaan ka mid ahaa SDA da markii London lagu sameeyey dadkii joogay marka waqtigaa waxaan ka mid ahaa markii ay kala jabaysay dadkii heshiisiinayay weliba anigu nin da'yar markii ay ku dambaysay in dhulkii dawlada kala soo galaan oo dad kala qabsado waxaan ahaa dadkii runtii ka maroor dilaacay laga bilaabo maalintaa ilaa maalinkan maanta marnaba kuma fikirin waxaan ku fikiri jiray ummaddaasi inay xorowdo oo ay ka hoos baxdo cid kasta in la xoroobaa ceeb maaha in la xoroobaa waa nolosha adduunyada oo dhan in maskaxda laga xoroobo in dhaqaalaha laga xoroobo in facilitieska iyo infrastructureka laga xoroobo actually waxay tahay ummadda dhan nolosheeda haddii aad dad kale ku hoos jirto oo aw dhaqaalahaagu ku hoos jiro oo ay siyaasaddaadu ku hoos jirto waxa weeye ummaddaada waa la isticmaalayaa waa la kala qaybinayaa waa la dullaysanayaa mana soo kacayso calaamadna inagamana dheera taasi example tusaalaha koowaad ee jira waxa weeye dejaarkeenna waxaa 40 milyan oo oromaa dhowr milyan oo kale ayaa xukuma mar walba wax kalena maaha ummadda haddii la qaybsado maamulka korka laga qabsado wax meel walbana ay ka xoroobi weydo hadda kadib waxay diyaar u noqonaysaa hayin u noqonaysaa in cid kastaba xukunto kambeynka dhowr iyo 20 sannadood ee anigu ku soo jiray waxa weeye waxaan isleeyahay hadda ayaa dadku diyaar u yahay oo uu fahmayaa waxaana weeye wuxuuna ku iman karaa iyadoo dadku gacmaha isqabsadaan oo ay walaaloobaan oo ay xagga sare dagaalku ay ka dhigtaan maaha xagga hoose waxa kale oo uu ku iman karaa maaha in si indhala'aana meel kasta loo tago oo dawlad kastaba loogu wareego xataa iminka Soomaaliya oo la yabyabayo marka aan gallo waa in aan qaybteeniyo hagaagsan ka helnaa maaha inaan si indhala'aana aan u gallo oo aan wax walba faraha ka saarno oo dabadeed tooleynaguna shacbiga dusha lagaga joogsanaya aan noqono waxa weeye Soomaaliya iminka waa la yabyabayaa waana run dawladna waa loo samaynayaa waxaa laga yaabaa in Somalilandna ay saa ku dhammaato waxaa laga yaabaa ummadda Somaliland joogta ta Puntland joogta ta meel walba joogta inay xagga xamar u wareegto culayskii markii horeyna saarnaa waxay noo raaci doona culays kale oo kaa xamara haddii aanay jirin ummad u hadasha oo afka ummaddan reer awdal ku hadasha ummaddaasi dadkaa hadlaya ee laga rabo inay ummadda u hadlaan ayaan rabnaa inuu xisbigan awdal state noqdo inuu noqdo xisbi siyaasadeed oo mar walba danta ummadda reer awdalun ka hadla oo aanu noqon xisbi siyaasadeed oo kolba ninka madaxii naftiisa iyo dantiisa oo uu ku shaqaysto waxaan rabnaa inuu noqdo mid dimuqraadiya oo la isdoorto oo 4 sano 5 sano markay gaadhaba nin kala bedelo waxaan rabnaa haddii xataa nidaam xamara ama meel kale ama whatever meeshu doona ha noqdeen haddii oo aan ku biirno in ay jirto maamul hoos ahaaneed oo weligeed aan leenahay oo cid kasta inaga hor joogsada dhibaatadeeda waxa weeye maanta dhaqaalaheenu xero ku jira oo waxba ma diri karno dibadaha uma diri karno dad baan daba galnaa deked ma lihin jid dhulkeenna isku xidhan ma lihin waxay taasi dhalisay 20 sannadood markaan xerada iyo jeelkaa gallay in hadda ay timiday mujtamaceennu in ay sanad kastaba inta xeebta xigta ay gaajooto gaajadani xagee ka imanaysa maaha gaajo
maxay barigaa ka biyalay ugu dhici weyd waxay ugu dhici laadahay waxa weeye dee dadka kale waxbaa dibadda uga yimaan dawlad bay leeyihiin cid baa u cararta dadkan cid u cararta iyo cid u hadasha iyo cid dawlad ay leeyihiin ma jirto waa ummad xero ku urursan oo aan waxna diri karin waxna samayn karin adduunyada dibaddana laga caawin karin markaa sanad kastaba waxay iminka noqotay in abaar la yidhaahdo man-made oo dadku sameeyey ay ku dhacdo abaaraha waxaan tusaale idinka soo qaadanaya tigreega etoobiya xakuma 80-nadii abaar baa ku dhacday adduunyadoo dhan baa u gurmatay dhulkaasi abaar baa lahaysay maantana waa dhulka ugu barwaaqaysan waayo dee maamulku gacanta ku haystaa iyo taliska waxa weeye ujeeddadan awdal state inta anigu aan joogo ee aan madaxa ka ahay aan rabaa in ay awdal dhulka awdal maamulkiisa hoose uu xor noqdo in xad loo sameeyo oo dadyowga kale ee walaalaheena meel aan inagu leenahay haba la iska deganaado dad kale ha deganaadaan laakiin xadkeennii la sugo xadkeennuna wuxuu ku sugan yahay meeshii gaalkii iyo ajaanibkii markay inoo yimaadeen halkay inoo jeexeen iyo halkay inagaga tegeen ciddii doontaa iska deganaatay laakiin waxa weeye wixii aan leenahay inagaale waana in la ogaado inaan leenahay ilaa halkaa dheerayn maayo hadalka waxa kale oo aan halkan u fadhiya anigu oo aan rabaa awdal state in ay suuro geliso in ummadda reer awdal ay dhaqaalo samayso oo ay wixii ka soo baxa carabaha u gudbin karto oo ay dibadaha u dhoofin karto oo wixii dibadda yaalana ay soo dhoofsan karto oo ay iyadu samaysato dekad ay leedahay airport ma lihin dekadna ma lihin maanta taana waxay ku gaari kartaa maaha si fudud dadka qaar waxay moodayaan in lacagtaa dibadda laga ururiyo un mar keliya dekad halkaa laga samayn karo in lacag airport laga samayn karo maaha waxaasoo dhan waxa keeni kara madax bannaani xornimo maskaxeed baa keeni kara bani aadmigu maskaxdu ka nool yahay maskaxdu ka dhaqdhaqaaqa maskaxda ayuu isku dhaafaa maskaxdan waxa weeye haddaanay xoroobin waxa ma tarto waxna ma qabato waxa weeye taana waxa ka ugu horeeya kow in horta ummaddani xoroobi markaasay dekad samaysan markaasay airport samaysan markaasay hadday doonto boqor samaysan laakiin inta aanay intaasi keenin waxba alla kale oo ay samaysan kartaa ma jirto waxa weeye xataa jidadkeeda ma samaysan karto waxaa laga yaabaa intaa iminka ay somaliland jirtay 200 milyan baa dibadaha laga soo caawiyey 10 milyan dhulkii awdal maga 5 milyan awdal maga jid lagama samayn dhowrka jid buurama laga dhisay contribution baa yaa lagu dhisay jidadka waxa weeye in hadday dawladdu jirto dawladdu samayso wax infrastructure kaasoo dhan waxaa lagu sameeyey hebelow dekadaad jidkaad ka soo horjeedaa lacag keen guriganow lacag keen sidaasay ku dhistaan reer awdal waxa weeye haddii aan siyaasiyan xor noqono adduunyada ayna caawin dibadaha ayna caawin waxaan anigu qabaa awdal state maamulkiisu aan anigu ka wakiilahay ujeeddadiisu waxa weeye in wax kasta oo ummad soomaalida ka mid ah ay leedahay aan yeelano iyo ka badan waxaana inoo haya inaynaan dhexdeenna eegin waxaan ku maqannahay oo waan arkayaa anigu dhexdeenna waxaan ku maqannahay isjiirjiirkeena waxaan ku maqannahay halkaan ka daciifaynaana halkaa wey waxaan arki laanahay ninka shishe waxaynu noqonnay gisihii blayniska afrika ku noolaa ee marka mid la qabto intay saa u eegaan ka dhaqaaqi jiray waxa weeye nafteenna iyo nolosheenna iyo dadnimadeenna iyo magaca ummaddeenna midna sharaf yeelan maayo haddii aynaan isku duubnaanin oo kaynaga dhintay aynaan sida gisahan ka tagnaa iminka aynaan odhanin kaasi muxuu nooga dhintay hadduu xag si ilaahay u dhintay khalaas dee ilaahay waxba lama weydiin karo isagayna wada abuuray laakiin haddii sabab kale jirto la yidhaha sababtaasi maxay tahay oo ciddii sababtaa keentay xaqeedii iyo waajibkeedii la mariyo waxa weeye maamulkan awdal state waxaa kaloon idinku daraya waxaan u aragnaa anagu waxaan ka dhigaynaa mid dimuqraadiya waxaan ka dhigaynaa mid dadka oo dhan uu ku jiro
waxaan ka dhigaynaa mid qof kastaaba dhinaciisa uu wax uga qabto ninkani ummaddaasuu necab yahay ummaddaa kaluu necab yahay ummaddaa kaluu necab yahay ummadda ma necbaanu waxa weeye kay agdega ee ilaa iyo soomaaliya ee kulba ka ii soo dhowba ii sii dhow laakiin oo nacaybsha ma jiro waayo ummadahani way wada degi jireen way wada noolaayeen way isdhaleen nin walba dhiiggiisay ku jiraan aniga dhiiggaygay ku jiraan ma odhan kara anigu xifaalahu wuu jiraa damacu wuu jiraa laakiin waxa weeye walaalka inaad tidhaahdo damaca iga jooji ceeb maaha taasi ceeb maaha laakiin inaad afka xidhato oo aad ciddaba iskala hadli weydo ummad ahaan waa khalad weyn waxaan anigu had iyo jeer ku booriyaa had iyo jeerna aan idhaahdaa in halanaga joogsado ceeb maaha walaalkaa waxbaad u taraysaa haddaad tidhahdo iga joogso waayo haddaad odhan weydo tallaabooyin kale oo xunxun oo adag ayuu sii qaadayaa wax badan oo aad leedahay buu sii dhacaya laakiin haddaad tidhahdo tan baad dhacdee tu dambe ha u noqoni dee wuu kaa joogsan dowladnimaduna saasay ku jirta waxaan markaa ummadda leehay waxa weeye wax alaali waxay ku soo xadgudbaya inay yidhahdaan laga joogsado iyaguna inaanay isku xadgudbin dadkana inaanay ku xadgudbin kale ee ummadaha ee dhulka la degan waxaan markaa kusoo gabagabaynayaa in aan inoo duceeyo oo aan idhaaho ilaahay inuu madax bannaanina siiyo inuu barwaaqa iyo bashbashina siiyo inuu ummadaheenna soomaaliyeedna dhammaan inuu dejiyo oo uu dawlad siiyo innagana inuu inaga dhigo ummad horumar leh oo aan gudaheeda iyo gunteeda ku soo noqon ee xagga shisha aragta een hoos lugaheeda arkina xagga fog ee shisha aragta ummad shaqaysata ummad sharaf leh inuu ilaahay naga dhigo sidaa ayay nabadgelyo